السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني في الله ومالين كلا وقروح بدن الحمد لله سود هذا وحايدين لي رمضان مبارك رمضان كريم دمانتين وحان دي رجينا يا عافيمات iyo dambi dhaaf in ilaahay uu idin dambi dhaafay ayay rajaynaya maanta waxaan wadaa barnaamij aad muhiim u ah barnaamij aad u qurux badan barnaamijkaas oo ah hal xiraale la idin ku xiranayo oo la idin weydiinayo hadda idinkoo fadhiya idin weydiinaya isla markii waxaan idin siinayaa 10 second adiga ama ilbiriqsi amal aan ku siinayaa oo jawaabay waxaan jeclaystay kowdii inaan ka dhigo 10 ilbiriqsi ama jawaabta inaan ka dhigo muuqaalka xiga inaan ka dhigaan kowdii aan yara jeclaystay laakiin waxaan ka sii jeclaystay in ama aragtay hadda meeshan aan ku sheego sababtoo ah haddii waqti ay qaadato oo video kale ay qaadato inay noqoto waxay noqonayaan in laga qish dhaco su'aasha marka hadda su'aasha aan u gudagalayaa insha Allah waqtiga idinku dheeraynin su'aalaha oo maskaxda qofka la weydiiyo maskaxda lagaga shaqaysiyo caafimaad baa ku jiro hal xiraalayaasha waa caafimaad qayb kamid ah caafimaadka marka waa shay wanaagsan oo in la qabto ay wanaagsan tahay mar walba inaad su'aal maskaxda weydiisid oo maskaxda su'aal u dirtid way wanaagsan tahay marka maanta su'aasheena waxay ka bilaabanaysaa sida tan su'aasha koowaad oo aan idin weydiin doono waxay tahay 10 ilbiriqsi gudaheeda ku jawaabaysaan wax waqti kale oo lagu daray ma laha maskaxda leh adoo jiifta ka jawaab hadii aad ka jawaabtay jawaabta aan gadaal ka sheego hambalyo ayaan ku dhahaa laakiin hadaad ka jawaabi weysay su'aasha xigta ayaan ku rajaynayaa inaad ka jawaabtid insha Allah su'aasha koowaad waxay sheegaysaa gaari ayaa u socdo wuxuu ka baxay kaba soo qaad Kenya oo ka baxay gaarigana waxa laga leeyahay dalkan Kenya ama handho Istanbul ama Turkiya laga leeyahay wadan kale oo xigo oo jaarka ah buu u baxay gaariga wuxuu ka baxay Kenya wuxuu u baxay halkaas iyo wuxuu u baxay maxaa la dhihi jiray Uganda xuduudda Uganda markii uu marayay gaariga dhaxda markuu maraya oo labada lug hore ay Uganda gashay labada lug dambana ay Kenya joogto oo gaariga shil galay shil aad u xun buu galay dadkii dhan way ku dhamaadeen meesha waa lagu dhamaaday marka dawladda Uganda iyo dawladda Kenya ama Soomaaliya iyo Kenya amal ay isku imaadeen waa la hadlay waa la wada fariistay waxaa la dhahay waxaa la isku qabsaday in duugista ay ka dhacdo ama Kenya ama maxaa la dhihi jiray Uganda midaas oo marka hadda su'aasha meeshan taalo waxay tahay yaa xaq ku leh intee lagu duugaa dhaawacaasayta ma Kenya lagu duugaa mise Uganda inkastoo dadka meesha saaran wadaniyiinta ay yihiin Kenyan badana isku jiraan Kenyan iyo Ugandes marka hadda dhaawaca ma waxa lagu duugayaa Kenya mise Uganda su'aashaas jawaabteeda ayaan ku rajaynayaa maskaxda ka shaqaysi waa maxay jawaabta 10 ilbiriqsi aan ku siinayaa hadaad ka jawaabtay su'aasha jawaabteeda waa sida tan jawaabtu waxa waaye dhaawaca ma bala duugaba waa la daaweeyaa meesha yar oo hadda ay baasho ku jirto tricksiga ku jiro waxa waaye dhaawaca aniga waxaan ku yiri dhaawaca xagee lagu duugayaa haddii aad heshay hambalyo haddii aad weysayna waa inuu su'aasha xigta insha Allah su'aasha xigta waxay leedahay gaari ayay ku saabsan tahay tanna
gaari ayaa wuxuu ka soo baxay Istanbul, wadanka Istanbul, wuxuu u socdaa Ankara. gaariga markuu Istanbul ka soo baxayay wuxuu waday xamuul, waa buuxay gaariga, wax baa saarnaa, gaariga waa buuxay, laakiin markii Ankara uu gaaray, ninka darawalka markuu soo degay wuxuu arkay gaarigii oo eber ah oo waxba saarneen oo maran buu arkay. marka su'aasha meesha taala waxay tahay, waa maxay waxa gaariga saarnaa? oo marka Istanbul maxaa ku dhacay? gaariga waxa saarnaa maxaa ku dhacay? Istanbul markuu yimid intayna ka baxeen, yaa qaatay intay ka baxeen? jawaab wacan. haddaad ka jawaabtay waan arkaynaa. jawaabta waa sidatan: gaariga waxaa saarnaa ice, baraf baa saarnaa. barafka markii la soo saarayo, laga soo saaray Istanbul, waa buuxay, waana adkaa. markii la gaaray Ankara wuu dhalaalay, way daateen, biyo camal ay u daateen. gaariga eber buu arkay ninka. haddaad jawaabtay oo aad jawaabta heshay, hambalyo. haddaad heli waysayna, waa inoo su'aasha xigta. su'aasha xigta waxay sheegaysaa adoo duur marayo oo meel duur marayo, gaajo aad u ba'an baa jirtay, aad baa u gaajootay. markaad gaajootay, wax aad cuntaa weysay, biyihii aad wadatayna way ka dhammaadeen, cunnadii yareed aad wadatayna way ka dhammaadeen, tahriib camal aad ku jirtaa, kaba soo qaad, meel saxara ahna waa maraysaa. marka waxaa nasiib ah ku heshay geed camba ah. geedkan cambaha waxaa saaran camba tiro badan oo wada bisil, laakiin qaab aad kusoo dejisatid ma qabtid, waayo waxaa hoos ku xiran ey. geedka hoostiisa waxaa ku xiran oo joogo ey baa joogo. marka eygan haddii oo aad dhahdid geedkan fuulaya, wuu ku cunaya. maxaad samayn kartaa? aad ku samaynaysaa eygaas si aad geedka u fuushid, mana furi kartid, mana u dhawaan kartid, waana kaligaa. maxaa ku samayn kartaa eygaas si aad geedka u fuushid oo cambaha u soo goosatid oo cuntid? jawaab wacan. jawaabta waa sidatan: waxaad samaynaysaa eyga markuu ku soo aadoba, waxaad ku samaynaysaa, waa u soo dhawaanaysaa, waxaad ku wareejinaysaa geedka korkiisa. saaba geedka korkiisa ugu wareejinaya, waa ku wareejinaya xiriggii. marka wuu ku xirmayaa geedka, dhuunta bay kaga xirmaysaa, kadib meeshu kaga xirmay maahane meesha kalaa kasoo fuulaysaa. haddaad heshay ood jawaabta sheegtay oo aad haleeshay, hambalyo. haddaad haleelinna, waa inoo su'aasha xigta. su'aasha xigta waxay leedahay laba dabaq oy kala leeyihiin laba madax. calaa sabiili lmithaal, haddii hadda aan kasoo qaadano mithaal ahaan, waxaa kala leh madaxweynaha dalka Soomaaliya Farmaajo, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyo ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Soomaaliya cali khayre kala leh. labadan dabaq way gubteen, dab baa qabsaday. dab markay qabsatay, adiga waxaa timid ambalaasta. markay timid, labada dabaqba way isla wada gubanayaan. dabaqay daminaysaa ambalaasta, ma dabaqa Farmaajo mise dabaqa khayre? sheeg bal jawaabta insha Allah. jawaabta waa sidatan: ambalaasta looguma talagelin inay dabaq damiso ama dab damiso, ee dabdamisaa looga talagalay. aniga kelimada ama ereyga aan isticmaalay wuxuu yahay ambalaasna dhaawaca iyo meydka unbaa lagu qaadaa.
haddaad heshay jawaabta hambalyo, haddaad heli weysayna waa inoo su-aasha xigta. su-aasha xigtana waxay sheegaysaa gaari baa siduu usoo ordayay wadada asoo haya oo jiiro gali raba, dameer baa meel taagnaa. dameerkii gaariga uu fiirinayo, gaariga siduu ordayay uu gadgadoomay. marka 4 jeer 5 jeer 6 jeer buu dabagadoomay. markuu dabagadoomay dameerkii wuu ku qoslay gaariga. dameerka muxuu ku qoslay? jawaab wacan. jawaabta waa sida tan. dameerka wuxuu ku qoslay afkiisa. haddaad heshay jawaabta hambalyo, haddii aad helin waa inoo su-aasha xigta. su-aasha xigta waxay sheegaysaa waxaa jirto dhalinyaro yar, cunug yariis ah wuxuu ku ciyaarayay liin beembeelo. liin ayuu ku dheelayay. liinta siduu ugu ciyaarayay way ka giraan girtay meel god oo maaragtay oo liinta bas la ego gacan aan galaynin ay kaga dhacday. liintaas qaabkay u soo saaraysaa? cunuga adigu ku soo ooyay wuxuu ku dhahay liintan ma ogi, aniga ma heshiis ma jirto. marka qaabkee ugu soo saaraysaa godka liintaas? jawaab wacan. jawaabta waa sida tan. godka ayaa biyo ka buuxinaysaa, kadib liinta ayadaa tartiib usoo kacayso, kor ay imaanaysaa, tartiib ayaa ugala baxaysaa. haddii aad jawaabta heshay hambalyo, haddii aad helinna waa inoo barnaamijka xiga insha allah biidni illaahi tacaala. asxaabta waxaan idin leeyahay shukran lakum wajazaakum allahu khayra aljazaa. waa inoo barnaamijka xiga, barnaamijyadan camal insha allah oo aad u fara badan iga rajeeyo hadduu ila yiraahdo. sababtoo ah maskaxdeena waxay u baahan tahay deganaan, in su'aalo maaragtay in la weydiiyo si maaragtay ay u jimacsato. su'aalaha maskaxda la weydiinayana waa jimacsi. marka waxaa idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.